بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على دمان خيارته علماءنا markay khayr Allah siiyay wacdi ama barnaamij diini ah inoo sheegayaan waxay ku furfurtaan af Carabi marka ani wax inta ka duwan ma sheegi rabo laakiin Carabi ku furfura ma af Soomaaliya ku furfurana hadal runtiisa waa hadalka Ilaahay hanuunna waa hanuunkii Nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam wax kasto diinta gadaal looga daranay waxay tuseedaa in yani diinta aysan dhameystirneen marka in diinta gadaal wax looga daro waa wax reeban cid diinta wax uga gadaal uga dartane ilaa wax reebanay sameysay way lunsan tahay cid lunsanna waxaan ognahay inay cadaab ku dambeynayso horta Ilaahay naga haayo intaas kadib maalin dhaweedaan Facebook waxaan soo galiyay video oo aan dadka leeyahay Soomaaliya hadda nabad uma baahnay barwaaqo u baahantay barwaaqo hal raadiyo marka asxaab badan oo asxaabna waxay ugu dhaheen iyo ilbaxnimadan cusub ee adabada ka riixayda leedahay barwaaqo hal raadiyo waxa jirtay dhaheen dhalinyaro inta adduunyada tagaan wax barteen hadda wax waliba qaldooyay haddeed ma waxbaad qaldi rabtaa si wax u wadaa marka si koobana marka waxaan rabaa 8 albaab oo qof kasto idin kamid ah hadii uu furto oo horta qani noqonayo markastoo qof kasto idin kamid ah oo qani noqdo oo waxa uu rabo oo helo yaani dalkii oo dhan nabad iska noqonayo waayo waxa la isku dirro waa baahi laakiin hadii la dhargan yahay laba suuq isugu imaanaysa ma lahan marka 8daas irid ugu horeeyay waxa la yiraahdaa irida taqwada la yiraahdaa oo waxa u daliila Ilaahay Quraanka wuxuu ku leeyahay waman yattaqillah yaj'al lahu makhrajan ويرزقه من غير ويرزقه من حيث لا يحتسب ومعناه wax kala maahan qofka Ilaahay ka dhowrsada Ilaahay wuxuu ka risaaqaa meel uu san fileen oo waa loo kala kicinaa habi uu noqonaa marka qofka markuu taqwo la yimaado risqiga dhana u fududaanayo waxa laga yaabaa marka inay madaxa ku jirto tiraado isleedahay waa maxay taqwo marka si yar fudud af Soomaali ku sheega taqwada wax kala maahan ee waxa waa meesha uu Ilaahay ka rabay yuusan ka tabin meel uusan ka rabin yuusan kugu arkin marka meesha Ilaahay ka rabay yuusan ka tabin meel uusan ka rabin yuusan kugu arkin markaad istiraado anu waxa ma aqaan culimada ma taga soo weydiya culimina weydiido ma baahnid waayo waxa u daliila suurta shams Ilaahay 10 jeer isku xigto daarana wuxuu ku daarnaa ugu dambeynta leeyahay fa alhamaha fujuraha wa taqwaha oo ah naf kasta waxaan ogeysiiyay qaladkeedii saxeeda marka adigu waad ogtaa wax qalad ah wax saxaaye meesha Ilaahay ka rabayna taagnaaw meesha iska rabina ka dhumo wadada koowaad waa taqwa marka la timaado risqiga dhana lagu fududeynaa habiya noqonayda wadada labaad waxa la yiraahdaa tawakkul tala saarashada oo waxa u daliila waman yatawakkalillah fa huwa hasbu qofki Ilaahay tala saarta rabbi yaa ku filan marka haddaad Ilaahay tala saarato oo tira hasbi Allah wa ni'mal wakiil ee shaqada aad socoto aad hawlihi aad rabto aad doonato way ku fududaanaydaa oo tawakkalkaas Ilaahay gashatay wax walba ku fududeyna waxaan maqlaayay wadaad amaanuud arkay wuxuu ka sheekeynay wuxuu wadaada wuxuu ku dhaxlumay wadamadan Sweden iyo gurigiisa oo ka lumay wax kala ma sameeyay salaad intuu istaago ilaa gurigan ka dhumay guriga geey hadii marka tawakkulkaaga uu gaaro wax kastana Ilaahay weydiiyo tiraw Ilaahay waa iga wareegsantay igtoosi Ilaahay tawakkalkiisa kugu filan xasbi Allah wa ni'mal wakiil Ilaahay nagu filan waa wadada labaad ee taajirnimada iyo hantida lagu helo wadada saddexaad waxa la yiraahdaa istighfar Ilaahu yaaf maanta dhan iska tiraahdo waxaana daliil u ah faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilu samaa ila aakhir aaya oo ah yaani waqti kasta daa tira Ilaahu yaaf Ilaahay samada ka soo daadina risq uma baahna xitaa inaa shaqaysato waxaan aad u maleedina xoog iyo aqal ku keenaydo uma baahna istighfar la soo jeeso oo maanta qof daa tira ruulaal yaaf markuu ku cafi kadib xataa waxa galayso ninkan wax ugu dar dhaqaalasi marka wadada saddexaad ee lagu taajiro waa istighfaarta wadada afraad ad wada taqaanaan waxa wadada shukriga la yiraahdo thank you the way oo waxa u daliila la in shakartum la azidanakum oo Ilaahay noo ballan qaad hadaad wax yarad haysato aad tiraad alxamdulillah Ilaahay wuu ku badinaa marka waxa laga yaabaa inaa istiraado horta Ilaahay maxaan uga mahad celiyaa horta hore isii waa ku fududeeyaa marka Ilaahay saddex nimco ku sii nimcada koowaad ku sii waxa la yiraahdaa nimcatul wujuud nimcada joogitaanka waa joogtaa waa hadlaysaa waa taagantaa hadda joogtaa waxaana ku tusaysaa kugu filan daliil
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا بري وحاجرتي إنسان كordhan uusan ahaynba wax la sheego adiga xataa iska soo qaad xilligii dawladda siyaad bar xagaa jirtay xilligii aadan cadda xagee jirtay kasii fogay xataa aadan cadda ma ahane waxa geysaa xilligii maxaa la yiraahdaa Sayyid Maxamed Cabdulla Xasan xagaa jirtay ama waa xilliga asxaabtii xagee jirtay marka maanta maadan joogin maanta joogtaa waa nimcada koowaad marka nimcatul wujuud la yiraahdaa nimcadaas aan ku sii nimcada labaad Ilaahay ku sii waxa waaye nimcada lahaanshaha wax la yiraahdo indhaad leedahay aragaad leedahay maqalaad leedahay dhadhanaad leedahay caqliyaad leedahay cudaad leedahay ehelaad leedahay asxaabaad leedahay fikiraad leedahay inay nimcataana waxaad ku ogaa kartaa bal dhinacyadaada fiiri qof aan intaa haysanaa jiro nimcada saddexaad Ilaahay ku siiyay nimcatul hidaayah hanuunka waay oo maanta qoladan Amazon iyo dhulkaas ku dhalanayso Brazil hanuuni waxa saxaba kama ogaba oo jaanis ay ku hanuunaan ama ay maxaa la yiraahdaa ay nolol ku samaystaan إلهي بمسين أدو ما أنت هنونا كودلة تضل مسلنا كودلة تيو هوي أبو مهر كودلين سد حداث إنه عمرك حال ويديو كلي thank you ده لا هو ما هتصنتاني والله إن شكرتم لازيدنكم نركب وضد أفراد وإنتاجر كنا قكرنا وأنا أتلا هذا الحمد لله وضد الشناد حالي هذا صلة الرحم أو هنا ترابة حريرسو محان الدليل واحد حديث النبي جاء أو ضحايا من أحب منكم أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه أو معناه هذا محين قلنا أو كما قال معناه هذا نوحاوه ورقف في الربو إن الدنيا ذا الله قرحية أنتي وحو الربو لسيه وتتكاغ أو قرابة هذا حريري هذا تكنولوجيا اللي مروا يايو قرابة حريري وحو نقضي لايك شير كومنت قرابة جويس كانوا وحو نقضي بلوك مركا حتى سد أحداث استعماشه هلذا ضد العكر أدنوهين حتى أطفال وقريسة شير قريدو للصعوتات وحواي وحقوق بدنا يتفهم ذا رزقي مركا رزقنا وقناع عادي هنتدين وسيدة كويلي ذا كورن مركا هدي حق الله عن فكرنا وأد فهم القرابة ذا أصحاب تاد حريب إلهي رزق ملبوك أكينا وضد مركا وضد الشنادة رزق اللي أو اللي هذا صلة الرحم وضد اللي حد وضد تقانان والصلاة أو حدلوا آيات القرآن كإله أوليه وأمر بأهلك في الصلاة واستبر أو أنك الرزق سينه رزق كمربنا وما أنت مركها الدكتور إلهي رزق بدنه سينا وحنا وفلا حال يري ننا ساحب كيس حوالي شيء ومقلة وأتجي ورديه يرد عليا وحيدنا هالمجلس يدحور نك صاحب عنا وقال عليه جذي مركوا قالوا حوار ساحب كيس تكناي وصعر سو عرّا يقول بيسو أرض قيمة حول إلهي ويعفي نينك أن شحاتك أدونتين وحويدي سربت إلهي إلا أضوك الشحادة أضانك الشحادة ربي وحيديب ساحب كيسا صلاة مركا وكبا حي اللي يرنين ساحبك كويمد حول وانوغا نيكا وحشوت بدنيه حولانا اللي قد بقيه مركا محاد قراني إذا حدات صلاة كو أتكاتو أقسم بالله وحكا معنانا يماله والتاجرين نوش وحارتان إلي ذا مركا وإريد اللحاد وأنا صلاة بديسا إريد التضباط وصدقة وحاول دليلة ومن يخرج الله قد حسن يضاعفه يعني ويا إلهي الشير لقلاي وحان مغلا يقول فورك اللي هذا مقدشي جوجتو كلها يسا بقول دولار يديبا بقول كنت أنا كاغا ديجيناي كورن ربي كو أبورو كيرو بقول كيان لفا بقول كاغا ديجا وحضنا أن كوسي لبلابا والدنيا آخرات كهلي ذا مركب وحا شاكيرا وحاجرتو حالي النبي عليه الصلاة والسلام neef ari gurigiisa ku qal in salaadii iska aada Aisha neefka way sadaqaysay hadhowtu markuu casirkii miiro Aisha maxaa noo haray markaas waxay tiri garab aan noo haray wuxuu yiri garabkaas bis aan naga maqan oo macnaheedu ay tahay adduunkan hantida aad shaqaysato guriyaha aad dhisato gawaarida aad yeelato dahabka aad gadato dharka aad gadato waxa soo dhan hanti aad adiga leedahay maaha laakiin $1 aad sadaqaysato dadka aad siida kaas bisaad leedahay oo asaga iyo weyn ku soo noqaa inta afka joogto aakhirna soo lagu laba jibaarayo oo marka sadaqadu waxa waaye shaygan iridaad oo maxaa la yiraahdaa toddobaad ka xigta inaad qani noqoto irida ugu dambeeyay sideedaad waxa la yiraahdaa irida cilmiga oo hortana cilmiga markaad maqasho dad waxay la aadaan computerka baro physics-ka baro علمي قرطه اللي وشيء سكوا مردا كوشة ومعرفة الله وأنا دلها أخوان ستا وحاول الولاية ما عندها كمبيوتر برته وحاد برتين
معرفة خلق الله إلهي وحو أبور وحي أبورين أدبرنويسا هدي أسي إيمان له أو حبرتني علمي كستوب برنا إذا إلهه كبرا إلهه كحرا إلهي يدبرنا إذا ربي كو أبورات فهنتوت برتني والله وحاد كمار ميدا ورهبلو يديب ورهبلو يقرقار وركليه حنون إذا دخترك حقوقو يالا waxaan waa ka maarmeeda isaga rabbiyaad mar walba u carreeda marka waa irida sideedaad ee naga xigto inaan qani noqon sideedaas irdood ilbaxnimo ay dabada ka riixayso iyaan rabnaa marka in yaani ummadii aynu go'aysiino oo niraado sideedaas iridaan u baahannahay marka qof kasta uu ku dhiirado oo qof kasta hadana waxa kale oo jirto aayad quraan waxa jirta aad aanu jeclo leedahay lima taquluuna ma la tafcaluuna wax kale ma aha waxaadan adiga sameyn dadka ha farin marka sideedii aniga ku dhaqmo sideedii aan sameeyaa wallahi qaniyaan ahay oo financial qaniyaan ahay qanaaca qalbi ahaan qaniyaan ahay adigana waad sameyn kartaa oo wax aqli u baahan ma wax aqoon u baahan ma hadaa marka kulligeen talaabadaas wada qaadno dhaqaalihi dalkan noo kobca dalkii dhaqaalihiisa markuu kobco maxaa la yiraahdaa xakamuhu waa far umaanku diido qofka bini aadamka in la faro liira waxa samay liiraada nidaam darraba waayba qofka haduu dharagsan yahay maba u baahanaba in wax loo sheego anshixiya iska soo noqona qulubtiya iska dagaysa nabigana wuxuu noo sheegay wuxuu yiri diinta islaamka la isoo dir wax kale ma ahane makaarimul akhlaaq waay inaan akhlaaqda mujtamaca kor u qaado waay marka akhlaaqdeena waan dhiseynaa sideedaa shayna waan sameeynaa hanti badan aan yeelanaynaa haddaan Soomaalina markaan qani noqono والله مدحويني إيه وزير إيه قلادي مركان هجامينيسو وحاواي مالك وحتى قطمت قمنا يقف جانس ويري اسم الله مدحويني يا مان تحلا إيه وايو وإحنا جمع قن مرهن ربي جينا الجود حرمي وحتى واحد دليل كلوه بريجي هرو جميستون هيستي يقين الصومالي ده حاجة دين الإسلام كآدي وسريس وده حلال عقوده تالس كها يقين تاس أوجد إلهي صفر ونوضع قاعد جميستي محاكو حكتي إنهم فلسفة شيء سوء آخرينون ديمقراطية إيه محلي هذا كليجيستاليس إيه رواية ذا كلو حق إلهي ما نعك الوضع محا أرجنا سير بني إسرائيل أفرت سنة ورير كجبنا واصلوا ورير سنة محا واي صومالي ذا عبادات كلي هذا عبادات الشعائرية والصمدها صوم كصلاة صدقة حجك إيه شهادتينك هذه وقفي عنتها لكن هذا دقيقة مركو نبي نوشيغا محوري بني الإسلام على 5 إسلام لماذا شنا اللي قدول دسي معناه إذا ما إسلام لماذا شنا سال لو استاجي إسلام لماذا دول صار إسلام لماذا مركو محاواي أنشحي وناك سنة واي قفكي أنشحي وناك سنة لها رب الله النقضة نولا شدنا توسيسو والله هذا نحل بان نوباهنين مدحوين نوباهنين عيدا نوباهنين ربي نوفنا وانا قنيا نقونينا مركو البحر لماذا أنبوش قرينينا وحكا لماها horta rabbi ha loo noqdo rabbi markii loo noqdana wax kasta asaga hal weydiisto marka maanta intaasaan jeclaanay la sheer gareeyo wax kale oo maxaa la yiraahdaa qoladaan iska dhaadhacsiisa waxbaan baranay falsafada ee isku dayay inay islaamnimada shaki geliyaan oo ku leeyihiin Soomaalida dadka ugu aqliga badanaana aqli ad ilaahay ku aqoonsan weyda aqli maahan oo Rajab Dawkins ma la yiraahdaa aqoonyahan professor waa lagu leeyahay ilaahay ma jiro meel lama yareysana marka nimayaho annaga caqiido qurux badan aan leenahay dad nadiif aan nahay jidka horaan ku soo noqonina sideedaa shay aan sameeyna qof kasta oo qofka walaalka ayaa gaarsi shay baashan oo kula toosto waxaan kale idinku gudaraa dharku caqiidada qofka ma sheego oo maanta duu suud qofka xirta micnaheedu inuu siyaasi yahay ama aqoon-yahan yahay maaha hadduu qamiis iyo garbisaar maxaa la dhahay cimaamad iyo tusbax weyn oo qaatanay micnaheedu maaha sheekh inuu yahay inuusan hayn dharka doonta adoo xiran iyaad qofnimadaada mar waliba wanaajin kartaa marka baasho aqligeena iyo subxaan la yiraahdaa aqoonsiga ha ka guuro dharka yaana noqon dharku ogaal ee aan noqon qofka jaanis inta la siiyo keena qaldanne yaan la dhihin waa qaldantay ku qaldamay inta loo tago hebel markuu ku qaldamay ma uusan ogeyn waxa uu sameeyay inay qalad tahay ka raali noqon oo dibanaha hal la qabto eedaysana yaan la qaban anshaxi hal la dhiso intaas aad igu soo gabagabeeyay waa mahadsantiin